waxaan maqlaynaa hadda maalmihii hadda ugu dambeysay waxaan maqlaynaa na soo gaaraysa yacni ilaa 3,000 in la badbaadiyey ayaan maqlaynaa oo na soo gaaraysa inkastoo aan kor joogsano indhaha saarin laakiin dad tira intaas la gaarayo oo doonyo fara badan la socday in la soo badbaadiyey qaarna weli la laayahay baa na soo gaaraysa ma garan waaye maxay isugu jiraan dadkani xaggee ka yimaadeen xaggee ku socdeen dadkani waa dadka muhaajiriinta ama tahriibayaasha la yiraahdo badankoodna Afrika ayay ka yimaadeen oo sida Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo masalan Niger iyo dalalka ku dhow waa dadkan haajirayo dhamaantood Yurub bay u socdaan waxa kale oo ku jira waliba dad dhinaca Yemen ka yimid ayaa ku jira Soomaali u badan oo wadabada caafimaad dadkaas oo jinsiyada kala duwan ah oo tahriibayo dhamaantood Yurub u socda ayay isugu jiraan walow markay sheegayaan qodobada Liibiyaanka iyo ay yiraahdaan maartay dad Afrikaan ah laakiin xogta aan helayna dadka kala duwan inay isugu jiraan baan helaynaa xogtooda ma garan waaye warkii ugu dambeeyay hadda soo baxay wuxuu sheegayaa ilaa 1,000 qof in markab laga leeyahay dalka Jarmalka uu soo badbaadiyay maalintii shalay tola Axadii Soomaali ma ku jirtaase ma ka warqabtaan dadkaasi laga soo badbaadiyay badda maalintii shalay xaqiiqada jirta waxay tahay dadka markooda ugu horeysaba ama Soomaali ahaadeen ama qolooyinka kale ha ahaadeen waxay gacanta ugu jiraan oo u xareysan yihiin oo doonyaha saara niman magafayaal la yiraahdo nimankaasuna waxay ku sugan yihiin dhulka aanay dawladdu ka talinin waliba xilliga hadda lagu jiro kala ugu sii daran oo sida aad la socotaan dagaal baa bartamaha Liibiya ka socda hadda oo dawladda la aqoonsan yahay oo caalamka aqoonsan yahay iyo mid ka soo horjeeda ayaa dagaal culus dhex maraya marka dagaaladaas ay jiraan